والله ده قلوين كت يقعد صور صار يدولة إثيوبيا بأوغان كرا إنه حقيقتها علامة دودي ويكون قرنتها لكن دمك علامة حوالة سمايستا لكن سو حيابها كياب كوجوين وحوي ما هني كان إلا ريي يصير اللو ريي ويان وحياب كله قفك هذه يجير وحلا سيا بالشمبال الصين يالورنا يواد كبحسا تهدينا بالش مشاهدة سيو قدمين وأنا أورن ما أنت بكبح لكن وقريب وحياب بين التاين لده waraaqdana maanta soo baxday maantana waa inaad meesha ka baxdaa wax weyn baa dhacay walaal marka waa gartay waraaqdan haatanba gacanta ayaan ku hayaa marka waxa la leeyahay urur goboleedka igad waxa ay u direen waraaqdan isaga qudhiisa wuxuu ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee ururka marka bal maxaa ay kula tahay in ay sabab u tahay in sidan loola hadli karo sarkaalkaasi gabre kolay waxay ka socotaa igad waxa loo qaybsadaa shaqaalaha wadamada ka qaybta ah ayaa kala qaybsada shaqaalaha inta badan maaha uun farsamo laguma qaato dadka intiisa badan marka gabre wuxuu ka socday Ethiopia markii hore magacowgiisa lahayd Kenya iyo qolooyinka kalena way ka aqbaleen marka waxaan isleeyahay waxyaabaha isbedelka ka socda Ethiopia ayay ku lug leedahay gaar ahaan sida degdega ee lama filaanka ee loo eriyay inay wax ka jiraan waa gartay horey waxa u jirtay dawladda Ethiopia in 9 ku dhawaad sarkaal oo booliis u badan ku xigeenkii madaxa booliiskana uu ku jiro in shaqada laga fariisiyay qaarna la xirxiray marka taasoo loola xiriirinay qaraxi ka dhacay magaalada Addis Ababa sabtidii aan soo dhaafnay marka tani ma taasay ku leedahay masoo wax ururka u gaar ah maxaa lagu falanqeyn karaa arrintan wallahi maskaxda waxay ku siinaysaa walaal iyaga gunta ogoode maynaan dhex fadhin marka waraaqdan la qorayo cidii soo wacday waa in la eriyayo waraaqdii dawladdaasi soo qortay laakiin waxyaabaha isbedelka Ethiopia ka dhacaya laba wajiin bay yeelan doonaan mid waxa weeye isbedelka socda ee ra'iisul wasaaruhu madaxda ka yahay ay la socdaan xisbiga Oromada iyo qaar kaleba xataa kuwa xamaarada qaarkood la socdaan inay guuleystaan oo qolooyinkii dawladii hore ku xidhnaa iyo ciidamada kuwii xukumi jiray meelayowga halbowlaha oo dhan in laga takhaluso ayay noqon doontaa iyo in rogaal celin hay sameeyaan oo ay jebin doonaan qolooyinka labadaa mid uun bay noqon doontaa laakiinse dagaal hoose oo xagga amniga iyo xagga kacala cadaystay siyaasadda labadaas ayaa Ethiopia karinaya walaal marka karkaasina waxa ka soo bixi doona dad fara badan oo waxay haysteen kuwaay ama shaqooyinkoodii ama jagooyinkoodii iyo maalkoogiiba iyo waxa laga yaabaa haday kuwii hore guuleystaan ay soo rogaal celiyaana qoladan cusub oo dhan baa laga takhalusaya laakiin imika waxay u egtahay in gilgilka ka dhacay meeshaasi iyo qaraxa fashilay intiisa badan dadka ku dhintaan inay u egtahay inay soo gaadhay isbedelka Ethiopia meel aan u ekeyn in dib looga noqon karo walaal waa gartay la taliye sare oo dhinaca ammaanka inuu ahaa ayuu igad u qaabilsanaa gabre bal marka dhinaca kalena waxaa muddo aad u dheer la hadalhayay inuu saameyn ku lahaa maamulada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada haday noqoto qaar ka mid ah xildhibaanada wasiirada qaarkood dad ayaa waxay aad hadiyo goor u sheegi jireen inay isku dhow yihiin siyaasiyiinta Soomaalida intooda badan marka hadii uu meesha ka baxo maxay siyaasadda Soomaaliya ku yeelan doontaa inkastoo asaga hadda uu ahaaba u qaybsanaha ama la taliyaha dhinaca amniga ee urur goboleedka igad anu saray walaal maalin quraan ninkan wajigiisa sheed ka arkay waxay maalintii doorashada madaxtooyinka ka dhacay xarunta ciidamada cirka ee magaalada Muqdisho anu meeshan fadhiyo dadkan ilaalinayna inayna waxba dhaafsan lacag iyo wax kamida marka waxaad arkaysaa ninkan way ku soo haganayeen qaarkood qolooyinka madaxda sheeganaya gobolada iyo kuwa baarlamaanka ku jiray waxaad moodaysay quraanjo ku ordaysa meel hay malab yaalo ayaad moodaysay sida ugu yaacayaan marka inuu ku xidhnaa uu sir siin jiray uu amar siin jiray oo san yeel oran jiray uu iyaka iska horkeeni jiray u malayn maayo markhaati doon inay tahay marka haddii taasi isbedeshay laba mid ama saddex mid unbaa Soomaali hortaala haddii ay dawladda Ethiopia ka dhab tahay inay leedahay waxaan doonaynaa Soomaali inaan walaaloowno waxa iman doona marka gobolka Soomaalida horta sida ula dhaqmaan iyo sida loo sifeeyo iyo cidda sifaynaysa ayay ku xidhnaan doontaa ilaa ninka madaxda gobolka Soomaalida ka ah wuxuu ku xidhnaa dawladii hore marka halka la mariyo halkaasi ayaa tilmaam weyn sii doonta inay waxaan tahay wax Soomaali inta iyaduna maskaxdeeda la timaado
ay ku shuraakoobi doonaan in ixtiraam iyo maamuus iyo qarannimo iyo jaar la wanaagsan la noqdo iyo in kale laakiinse waxa weeyaan karka ka socda iyo kulaylka ka socda Ethiopia mudduu qaadan doona inuu kala miiro